dhigitaalka toddobaadka iyo sheekada Morris waxay idin soo jeedin doona aniga oo ah Libaax Barqiye. Morris waxay ahaayeen Afrikaan ka mid ahaa Afrikaanka waqooyi kuwaas oo qabsaday xukunkii Spain 711 ilaa 1492 iyaga oo galay markii ugu horeysay jasiiradda Iberia ee Spain markii ay ka soo gudbeen Strait of the Gibraltar iyagoo sii maray Morocco. Morris African waxa ay caan ku ahaayeen qaab dhismeed gaar u ahaa iyo xirfado injineernimo waxayna dhiseen dhismayaal badan oo cajiib sida jaamacado, masaajido kuwaas oo ilaa maanta taagan. waxay wax badan ku soo kordhiyeen dhinacyada kala duwan oo ay ka mid ahaayeen xisaabta, caafimaadka, chemistry-ga, falsafada, cilmiga xidigiska, cilmiga dhirta iyo bulkeetiga. haddaba taariikhda Morris Afrikaanku waxay ahayd tii ugu horeysay ee soo bandhigtay isticmaalka lambarka carabiga ah ee Yurub kuwaas oo ilaa hadda laga isticmaalo. waxa kale oo ay horumar la taaban karo ka gaadheen dhinaca daaweynta waxayna si horumariyeen daaweynta cudurrada kala duwan kuwaas oo abuuray buugaag caafimaad ah oo si weyn loo isticmaali jiray. intaas waxa uu dheeraa Morris Afrikaanka waxay ahaayeen xidigayaal xirfad leh waxayna horumariyeen farsamooyin iyaga u gaar ah si ay u cabiraan waqtiga oo ay u go'aamiyaan booska jidka samada. waxa kale oo ay wax ku darsadeen dhirta iyaga oo soo bandhigay dhir cusub oo laga helo Spain iyo abuurista beeraha oo ay dad badani u bogeen. haddaba Morris Afrikaanku waxa ay sidoo kale caan ku ahaayeen khibradda bulkeetiga oo ay ka dhiseen dhismayaal badan oo cajiib ah sida qasriyada iyo guryaha kala duwan iyadoo loo arko kuwo ka mid ahaa dhismayaasha ugu quruxda badan ee uguna cajiibsan adduunka. waxa ay sidoo kale aad wax uga qoreen taariikhdooda qoraallo taariikhi ah oo aad u tiro badan kuwaas oo ilaa maanta la daraasadeeyo.